waa xaflad loogu talagalay in lagu weyneeyo maalmaha ciidda barakeysan ee Ciidul Adha. qabashada xafladan waxa soo qaban qaabiyay dhalinyaro isxilqaamay isla markaana la magac baxay hobalada hidaha iyo dhaqanka gobolka Hiiraan oo gacan ka helaya madaxda ugu sareysa maamulka gobolka Hiiraan. waxaana ka qayb galay xafladan madaxda maamulka heer gobol iyo degmo, dhalinyarada, haweenka, qaybaha kala duwan ee bulshada iyo waliba halabuuro fanaaniin ayagoona goobta ay ku soo bandhigeen fanaaniintii ka qayb galay xaflada heeso iyo waliba ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka Soomaalidu ay caanka ku tahay. iyo kala guurkii lagu hoosaday baa shacabkeena qaribee iyo kala guurkii lagu hoosaday baa shacabkeena qaribee Somaliland Mario dibaatada miyaan laga quusan wali Somaliland Mario dibaatada miyaan laga quusan wali alla la siiyo wadankeena qaniga ilagu qancahabo alla la siiyo wadankeena qaniga ilagu qancahabo sidoo kale waxa goobta lagu soo bandhigay dalagyada ama kheyraadka gobolkani oo caanka ku yahay iyo waliba alaabaha hidaha iyo dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed. qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka ee ka qayb galay xafladda iyo xubnaha matalayay ururada dhalinyarada iyo haweenka ka jira gobolkani Hiiraan iyo waliba gudoomiye hore gobolka Hiiraan Mudane Cabdi Fataax Xasan Afrax oo goobta si wada jir ah uga soo jeediyay hadallo u badnaa hambaliyada ciida ayaa waxa ay bogaadiyeen qof walba ee ka qayb qaatay qabashada xafladan. aad iyo aad ugu faraxsanahay
hambalyan leenahay Soomaaliya meel kasta ay joogto waxaan hambalyeeyay maantay diin wanaagsan ayaan hambalyeeyay sanadkan sanadkiisa kale ku gaaraan farxad iyo baraare iyo basbash iyo barwaaqo waxaan kaloo leenahay reer Hirshabeelle ayaan hambalyo u diraynaa iyagana maanta waxaan dhihi karnaa waaga bariyay jilicsan arooryo suuban maalin baxsan waayo caraale wuxuu hayaa muxuu adiga xilka ugu bilo camal ku dhow ah waxa uu dardargeliyey dhallinyaradii fanka oo aan isdhihi karno maanta waxay soo bandhigeen dhaqankii hiddihii qalabkii kala duwanaa mudane guddoomiye cali maxamed caraale waad u jeedaa hiddaha iyo dhaqanka gobolka hiiraan iyo fankii sida loo jecel yahay ayadoo maanta tahay maalin ciid ah dadkuna maaragtaa oo haddii maalin kale looga dhigo intaan ay ka badan lahaayeen haddana sidaan tirada badan loo joogo waxaad dareemaysaa dadku inuu jecel yahay nabadda laakiin dad nabad isugu yeero bay la yihiinbu marka haddii ilaah yidhaahdo maadaama waqtigaada uu cusub yahay ma ku dhaliilayno hawada hidaha iyo dhaqanka gobolka hiiraan waxay diyaar u yihiin in ay soo celiyaan hidaha iyo dhaqankii uu gobolkan caanka ku ahaa sidoo kale kale inay soo celiyaan fankii suugaantii soomaaliyeed khaasatan reer hiiraan run ahaantii xafladan maanta waan jeclaan lahayn ciyaaro badan aan kusoo bandhigno laakiin hadda ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka qaar kamida iyo fanaaniintii oo loo joogo ayaan insha allah aad iyo aad aan ugu dabaaldegi doonaa haddii ilaahay idmo sidoo kaleeto howlada hidaha iyo dhaqanka gobolka hiiraan waxa ay muddo hambaryada ciidda meel kasta ay joogaan ummadda muslimiinta ah iyo ummadda Soomaaliyeed sidoo kale ciid wanaagsan ayaan leeyahay farxad aan ku wada ciidno wax kale meesha kama banaano oo aan ahayn hambaryadaas ciidda runtii waxaan dareemaynaa ciiddii ugu fiicneed oo ku ciidna halkan intii aan joogay sanadkan oo laba ciidood igu soo gashay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gudoomiye xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda maamulka gobolka Hiiraan Xasan Ibrahim Cabdulle ayaa isna dhankiisa ka hadlay munaasabadda isagoona mikrofoonka ku soo dhaweeyay gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Mudane Cali Maxamed Caraale oo isagu qabashada xafladan ka caawiyay dhalinyarada soo abaabulay munaasabadan ayaa bogaadiyay heesaha iyo ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee goobta lagu soo bandhigay bulshadana kula dardaarmay inay gacmaha isqabsadaan isla markaana is caawiyaan maalmaha ciida barakeysan ee Ciidul Adha awgeed qaasatan Hirshabeelle dowlad goboleedka Hirshabeelle gobolka Hiiraan magaalada Beledweyne waxaan u rajaynayaa in amniga ka wanaagsan barwaaqo ka wanaagsan horumarka ka wanaagsan inay gaaraan ummadda Soomaaliyeed ee halkan joogta cid kasta oo waqti iyo juhdi ku soo dhumiyay bahda ciyaarta soo bandhigtay ciyaaraha kala duwan ee ugu horeeyaan hidaha iyo dhaqanka sidoo kale way kaga mahadcelinaa waqtiga ay soo horeen iyo juhdiga ay bixiyeen qabanqaabayaashii ay lahaa barnaamijkan inuu qabsoomo cid kasta oo ka qayb qaadatay magaca iyo masabka ay ugu qayb qaateen sidoo kale aad iyo aadan kaga mahadcelinaa bahdan qiimaha badan waxaan leeyahay hambalyo ciid wanaagsan dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaan gaar ahaan dadka ku nool gobolka Hirshabeelle gaar ahaan dadka ku nool gobolka Hiiraan waxaan leeyahay hambalyo sanadkan sanadkiisa kale ku gaara ciid wanaagsan inta ka bacdi waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dadka xafladda aad u qurux badan maanta soo gaabiyey ee ugu horeeyaan ururada kala duwan ee bulshada sida ururka abwaaniinta iyo fanka iyo dhaqanka iyo hidaha ee gobolka Hiiraan waxaan jeclahay inay igu soo gudbiyo hambalyo diiran oo kaliya laam ah oo adinka iyo familigiina iyo carruurtiina iyo xaasaskiina waxaan leeyahay hambalyo waxaan leeyahay ciid wanaagsan sanadkan sanadkiina kale waxaad ku gaaraysaan hambalyo iyo bogaadin iyo reenreen iyo farxad waxaan kaloo ka codsanaa dhammaan dadka halkan isku yimid ganacsatada dadka wax haysta in maantoo kale in la bixiyo sadaqo in maanta gacmaha la furo in maanta jeebabka la furo in la isgaarsiiyo wixii la haysto Qaalid Maxamed Ismaaciil Kacase telefishinka caalamiga Soomaali News Beledweyne